kusoo dhawaada asxaabta. Maanta waxaan baranaynaa application la yaab leh. Application-kaas oo inaga caawinaya inaan internet-keena speed-ku yahay speed kale kusii darno. Matalan xagga haddaynu isticmaalno YouTube oo kale aad inooga caawinaya. Application-ka waa ka arkaysaan description-kiisa halkaad kasoo download garaysanaysaan. waxaan inoo dhigi doonaa insha Allah xagga hoose description-ka channel-ka. kama helaysaan Play Store-ka application-kan. marka insha Allah website-ka tooskiisa aad u booqanaysaan isagana insha Allah aad ka download garaysan doontaan. waa sax. haddaba waxaanu bilaabaynaa bal inuu application-kani sidaan doonayno inuu shaqeeyo kale waynu ku dhufanaynaa. markaanu ku dhufano waa fayga inoogu xiran automatically markiiba inoo soo dhigayaa. wakaan Maxamed Xaaji inoogu xiran yahay waa faygayga. kadibna waxaan connect waa sheegnaysa halka ku taala. marka waynu ku dhufanaynaa connect. markaanu waan sugaynaa waa connect. boqolkiiba 28 buu awoodeen speed-ka ahayd kor inoogu dalacay maasha Allah. marka waxaanu tagaynaa application-ka doonayno inaan ku furno. waa application-ku fara badan yahay. waxa kale jirta isagoo VPN ay ku oranaya ku fur oo VPN-ka ku xidhkoonaya. laakiin VPN maanta in waxba uma baahnina. waxaan doonaa application-kan uu socdo waxa weeyaan in speed-keena kor noogu qaadayn karo inaan sheegno. marka waxaan tagaynaa application doonayno ku furno. tan waxaan doonaa YouTube-keena ku furno. YouTube-ka waa waan ku furnay. YouTube-ka gaar ahaan soo kadib waynu soo dhigay. haddaba waxaan doonaynaa bal inuu application-kii aan doonaynay inaan ku furno video-gii matalan kama ku furno. waxaan doonaynaa bal inaynu bedelo 300 automatically 360 pixel buu amba ayuu inoogu soo furay isagoo 400 automatically yahay 480. application-ku waa wixii like wixii subscribe xaqiina insha Allah comment-kan xaq hoose insha Allah aad igu soo dhigi doontaan si aan wax kale ugu sii dhiirano oo aan waxyaabo badan igu soo dhigno. waad ku mahadsantahay.